kulanti waxaan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa kulamadii maanta la ciyaaray Arsenal sanadkan horyaalka ha loo dhaafo fariin cad ayaa haddana inoo diraysa sanadkan horyaalka ha lay dhaafo ay Arsenal leedahay 8 dhibcood ayaa hadda horyaalka ku haysaa Barcelona oo Real Madrid garaacday iyo waxaan eegi doonaa wararka suuqa ee xeebo liga yiraahday iyo waxyaabaha kusoo kordhay suuqa muuqaalkeena intina bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareysa asxaab badan ay u gaadho haday tahay markii ugu horeysay ama soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkan furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno runtii kulankii ugu weynaa ee caawa jiray ee la wada sugayay kulanka El Clasico oo kulamaana koobkii la kala qaadiyay ee Spanish Super Cup Barcelona ayaa caawa runtii Real Madrid garaacday Barca cawadii la eego dhan walba ida ku basiraysay Real Madrid halfkii hore 2-0 ay kulanka ku hogaamisay kiidamna hal gool ay ku dartay xidigooyin fara badan ayaa kulankani wacdareynayay runtii waxay muuqday Real Madrid weerarkeeda noqotay khadkeeda dhexe daaficida in caawa ay ka jiiftay inkastoo daqiiqadii 9aad la oran karo daqiiqadii ugu dambeeyay ay goolka calanka dhashteen Gavi ayaa gool koobaad ku furfuray labada gool ee dambana caawi daqiiqa runtii waa maadsidii oo kulankan waa wacdaray Lewandowski ayaa goolkiisii ugu horeeyay kulanka El Clasico dhaliyay Pedri ayaa dhaliyay Gavi sidoo kale goolkiisii ugu horeeyay kulankan El Clasico ayuu ahaa Barcelona hadii Real ay gacan qaado runtii 3 kulankan gool fara badan Barcelona waa dhashan karisay fursadooyin fara badan waa iska khasaarisay Dembele fursadooyin fara badan ay runtii cunay Barcelona 3-0 ayaa caawa ku garaacday Real Madrid koobkana sidaas shay ay ku hanatay markii ugu dambeeyay ee labadan kooxood ay koobkan Spanish Super Cup ay ku kulmaan waqti hore ay ahayd waqtigii Ronaldo intuu bedelku ka soo galo oo goolka shanaad uu dhalinayay oo sida Messi intuu dabaaldego Xasan kan qaadanayay kulankaasi oo Real Madrid ay koobkan ay qaaday runtii Barcelona koobkeeda 14aad ayuu ka dhigan yahay 13 iyo 12 ay labadan kooxood ka lahaayeen Barca laba koob ay saas ku dhaaftay markaa eegina koobkan Spanish Super Cup-ka 14 ayuu koobkan ugu dhigan yahay kooxda Barcelona halka Real Madrid ay haysto 12 runtii Barcelona saasi ay ku garaacday kooxda Real Madrid oo caawa ka gacan sarisay kulanka El Clasico-na guusheedii 9aad ay Barcelona caawa gaadhay halka Real Madrid 101 gool ay ka haysto kulamo kale ayaa kulankani kulamaana caawa runtii waaweynaa ha noqoto horyaalka Premier League iyo horyaalada Serie A Arsenal iyo runtii Tottenham ayaa caawiyaguna foodeystiray kulan weyn oo runtii lagu sii xaqiijinayay horyaalka ayuu runtii ahaa in ay Arsenal iska lumiso fursad weyn runtii Tottenham laftigeeda waxay muuqataa inay ka sameeytayba 4 kaalmood oo dhowr maalmood gudaha isugu soo dhiibiso kulankani Tottenhamna waxa weeytaa Manchester City runtii 4 sare qaniqirayay sigriya Arsenal 2 gool ay ku garaacday sidoo kale garoonka Tottenham Hotspur Stadium in Arsenal ay ku soo badiso waqti dheer ay ugu dambeysay 2014 ay ugu dambeysay caawna waa taasoo 2-0 ay ku garaacday kooxdii Tottenham Lloris gool iska dhigay inkastoo goolkaasi uu ka soo shaqeeyay oo soo farshaxameeyay oo runtii kubadda soo jiitay Lloris oo ku dhuftay Saka runtii Saka iyo xidigahan hadda adeegto labada garab ee kooxdan Arsenal Martinelli iyo Saka waa labada kooxood waa labada garab ee kooxaha kale ay ku dhaaftay wale waa derbiga kugu soo duma hadii labada kooxood ay ku soo weeraraan Saka iyo waliba Martinelli labadan ciyaartoy ay ku soo weeraraan waa derbiga kugu soo duma sidoo kale Martin Odegaard wale waa qolmay la sii xidiga bisha December runtii waxa kulankani ka sameeyay caawna kaasi gool ayuu dhalinayaa xidiga gool badan khadda xidaa ninkan weeriyahano ayuu sanadkan uga gool badan yahay horyaalka Premier League 8 ay runtii maraya 8 gool ayuu dhalinayaa waxa jira weeriyahano fara badan oo uga gool badan yahay 8 ayuu isagoo khadda ka ciyaaraya ayuu leeyahay waxa xitaa uga gool badan weeriyahanka Mohamed Salah waxa ku gool badan yahay hadii la eegta weeryahanadiisa ka garab ciyaaraya Martin Odegaard waa ka gool badan yahay runtii xitaa la Saka waa ka gool badan yahay ninkan khadda ka ciyaaraya Jesus inkastoo dhaawac yahay waxdigiisa kala ciyaaraya ha noqoto Havertz ha noqoto Darwin Núñez ka Liverpool xidigaas dhan ay ka gool badan yahay khadda xitaa la Son
ayuu ka gool badan yahay runtii Odegaard waa kacsan yahay qadaxna waa laga ciyaaraya goolashaasina waa dhanaya wala Arsenal waxay leedahay horyaalka sanadkan hal ay dhaafo laakiin kulan weyn ayaa sugaya toddobaadka soo socda waliba axadda soo socota toddobaadka dambe kulan weyn baa sugaya kulankaasina waxay la leedahay kooxda kaliya ee garaacday sanadka horyaalka Premier League saddexdii dhibcood ee kaliya ay lumiyeen inkastoo kulmo fara badan barbar ayaa lala galay saddexdii dhibcood ee kaliya lumiyeen kooxda ka qaadatay Manchester United ay runtii leeyihiin inkastoo United bay kacsanto Manchester City soo garaacday kooxin waaweyn soo garaacday hunguriga kaga jiro runtii ay doonayso horyaalka inay dafto oo maantaba taageerayaasha Manchester United doonayeen in Arsenal laga badiyo oo Tottenham badiso runtii hunguri baaba ka galayba kulankaasi weyn Arsenal sugaya oo horyaalkeeda ay ku soo xaqiisan karto Tottenham waa karbaashtay kulanka sugayana waxa weeye kulanka ay la leedahay Manchester United laakiin waxa leeyahay Manchester United waxay haysataa fursad weyn oo horyaalka ay kaalinta labaad ay kula wareegi karso runtii hal dhibic ay ka sareysaa Manchester City 9 leh halka Manchester United 8 leeday kulanka ay ciyaar doonto maalin dhow ay leedahay Crystal Palace oo kulan baaqi ah hadii badiso waxay ka dhigan tahay inay tagayso 41 oo ay laba dhibcood ka hayso kaalinta labaad Manchester City kulanka u baaqiga runtii kulankaasna Manchester City waxay leedahay kooxda Tottenham kulankaas hadii Manchester Tottenham kooxa kala garaacaan laakiin Manchester City Tottenham waa ku adag tahay waa ka badin kartaa fursadaasna United waa gadgaasa inkastoo Newcastle laftigeedu ay madaxadeegayso oo ay caawa ay gooli ever ay ku badisay oo iyadba 8 ay soo marayso runtii kulan lagu dhibay Crystal Palace Fulham Mitrovic oo runtii daqiiqadii 60aad rikoor ka khasaariyay kooxda Fulham Newcastle runtii daqiiqadii 80aad xidigeeda dhawaan ay suuqa lacagta rikoorka ay kula soo wareegtay Isaac ay daqiiqadii 80aad ku baxsadeen laftigeeduba waa ku fuqulayn kaalintii saddexaad United haddana waa kala wareegan United kaalintii afraad ay maanta soo dhacday Newcastle ay dib loo wareegtay dhanka farqiga goolasha inay ka haystaan inkastoo ay isku dhibcayeen oo Manchester City fursadaas weyn baa United sugaysa inay kaalinta labaad ay City ay ka qaadan karto kulan Crystal Palace ee maalin dhow ay leedahay runtii ay waliba kulanka waxay leedahay 18 bishan maalinka Salaasada ay kulankaasi ciyaari doontaa haddii kulanka Crystal Palace ay garaacdo runtii fursad weyn ay haystaa xitaa la kulanka maalinka 18 January waxa wada ciyaaraya Inter Milan iyo AC Milan kulan derby ay runtii wada sugaya maalinkana waa kulan Manchester United ay wax weyn eegan sirto weyn kulanka ugu xigana waa kulanka Arsenal leedahay kulankaas maanta ay ugu darto waxay noqon doontaa kooxda kaliya ee Arsenal hoomiyaabiba garaacday inkastoo Arsenal shan caawa arkay Arsenal si fudud loo garaaci kariyo aanay hayn oo runtii mid madaxadeegaysa oo han u galay oo aan doonayn si fudud wax kulimisa ay ahayd maanta waxa ciyaarayay Chelsea oo muddo dheer aan badin ayaa maanta gooli ever Crystal Palace ku garaacday inkastoo kulankan xilli hore uu soo dhacay Havertz ay daqiiqadii 60aad runtii gool uu dhaliyay ku baxsaday waxayna kulankaas ay ku soo bandhigtay xidigeedii ay la wareegtay Michael Modric ay kala wareegtay runtii waxa jiray waqti Michael Modric uu qarka u saarnaa Arsenal inuu wareego xitaa la kulankii ay garaacay kooxda Arsenal West Ham United oo bartiis Instagram ku soo dhigay ugu dambeyn maantana waa ka saaray bartiis Instagram-ka sawirkaas waa ka saaray waayo taageerayaasha Chelsea ayuuna kala ku biray Chelsea Arsenal derby London ay soo la isma tusi karo waqtigaasi Arsenal ayuu mooday inuu daayirka runtii la leeyahay niyadiisu dhankaas Arsenal ay u badneed laakiin ugu dambeyn Chelsea ayuu ku biray taageerayaasha cusub ee kooxdiisa cusubna waa qaabilay sawirkiina waa ka saaray maantana gool ay baray ku garaacdo laftigeeduba waxay hadda ay isku dhibcayihiin kooxda Liverpool oo runtii Liverpool soo dhacday kaalin 9aad marisa wali Liverpool wax weyn baan haysta xitaa la hadii ay dhanka wararka suuqa Barcelona ayaa waxa leeyahay Kiisa ay waxay u bandhigtay Inter iyadoo raadinaysa heshiis isku bedelasha oo ay kula soo wareegayso hadii kooxdaas Inter Brozovic bay doonaysaa Kiisana waxa rabtaa Inter inay gacanta u geliso Barcelona
ayaa xitaa waxaa lagu soo waramayaa saacadihii ugu dambeeyay inay doonayso inay fasaxdo Rafinha kaliya waxay ku doonaysaa haddii lagu soo dalbado lacag gaadhaysa 100 milyan inay damacsan tahay xidigii ay dhawaan ay la soo wareegtay ee Rafinha reer Brazil 100 milyan ayna rabtaa inay ku fasaxdo tababaraha Arsenal Arteta ayaa wuxuu sheegay waqtiga uu soo laabanay Gabriel Jesus isagoo sheegay in dhaawac soo gaaray ka weyn yahay midkii la filayay Arteta ayaa wuxuu sheegayaa in dhamaadka xilli ciyaareedku soo laaban doono oo ku beegan bisha May xilli ciyaareedka inta ka hadhay uu seegi doono inkastoo leeyahay kulamada dambe ninkan waa soo kici karaa dhaawac sidii la filayay waa ka weynaaday waqti dheerna ayuu Gabriel Jesus uu ka maqnaan doona garoomada inkastoo leeyahay in Keita ayaaba qanciyay oo runtii booskiisa intaas waa buuxinaya wararka suuqana atalaya Arsenal waa ka tala baxday kadib markii laba weeraryahan oo aad ay u raadinaysay runtii laga gacan sareeyay kooxda Liverpool ayaa waxaa la xiriirinayaa khadka dhexe kooxda Wolverhampton Wolves ee runtii Robin Nafas inkaasay doonaysa khadkeeda dhexe runtii furan inay isku jaabayso way doonaysa inay isku xoojiso Robin Nafas ayaana aad loola xirinayaa khadkeeda sanadka Liverpool waa furan yahay si loo soo socdo ayaa goolka la gelaya xidigana ay rabtay in khadkeeda dhexe ay ku xoojiso Wood Horty ayaa waxaa runtii uu ka soo muuqday maanta tababarkiisii ugu horeeyay ee kooxdiisa cusub ee Manchester United maanta inuu ka soo muuqday tababarka waxaan loo xiray lambarka 27aad oo ninkan farta laga saaray tababarkiisii ugu horeysana maanta ay loo qaatay warkiina ciyaar wanaagsan saaxiibayaal intaanu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum